kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena haddaba barnaamijkan waxaynu gabi ahaantii kusoo qaadanaynaa halka la kala marayo dagaalka culus ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo Iiraan. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa saacad ka hor xilliga aan idinla hadlayo waxaa weeraro culus ay soo gabagaboobeen dufcadii 6 iyo 5 ayaa soo gabagaboobay dufcad ayay number u leeyihiin weerarada gantaalaha 6 iyo 5 waxay ku habsadeen meelo kala duwan oo Israa'iil ka tirsan waxa ay baabi'iyeen deegaan dhan oo la yiraahdo Shemesh oo Yahuuda ay deganeed oo ku yaalay duleedka magaalada Qudus waa dhul Falastiiniyiinta markii hore laga boobay oo laga xoogay oo Yahuud la dejiyay magaalo dhan oo Yahuudu ay degantahay ilaa hadda inta gantaalo ku dhacday lama yaqaanee magaaladii guryaheedii oo dhan waa dhalaaleen dhulkay wada galeen waxay u ekaatay magaalada Gaza oo la duqeeyay oo kale guryaheedii say noqdeen oo hinta iyo baroorta iyo qaylada hadda ka socota telefishinada oo ayaabisa intaasaa dhimatay meedadkii haynaa intaasoo dhaawac waa haynaa qaar badan ayaa teleefanadoodii la la'yahay oo guryihii ku dumeen oo ku hoos jira marka nimankii sidaasaa loo galay maanta oo hinta iyo cabaadka ka dhacaya waa yaabaysaan haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay idaacadda Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay sare u kaceen dadka ku dhintay ilaa hadda meydadkooda la helay deegaanka la yiraahdo Shemesh ilaa 8 qof ayaa la helay meydkooda la leeyahay markii gantaalaha Iiraan ay ku habsadeen deegaankaas Yahuuda la dejiyay ee ku yaala galbeedka magaalada Qudus ee Israa'iil ay xooga ku haysato warbaahinta Israa'iil waxay dhanka kala sheegtay ilaa hadda 30 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba in halka laga soo saaray waxa soo kale la sheegayaa dad aan xisaabtooda la garanayn inay ku hoos jiraan burburka guryihii meesha ku burburay hoostooda ay ka qaylinayaan oo ay ku jiraan shalay wixii ay Falastiiniyiinta ku sameeyeen way ilaahay isla sheekadii mid u ega halkan ka sameeyay Falastiiniyiinta godadka dhulka hoostooda guryihii inta ku dumay ay gacmaha soo taagayeen ay qaylinayeen ayagana waa tabti oo kale maanta ilaahay awoodiis gantaalihii xaafadan ay ku habsadeen macnaha xaafado dhan oo guryo maaratay dabaqya oo loo dhisay dadkii Yahuuda Shemesh la yiraahdo Yahuuda la dejiyay waa meelo waaweyn Bangaariyadeen iyo Soomaaliya oo kale guryahaas ay u dhisayeen oo kale meeshaas oo dhan adukum daakum noqotay sidaas marka waxa ka dhacay hadda dadkii waa la'nahay dadkii aawe qaara guryaha dhulka hoostooda burburkii dul saaran yahay ka qaylinaya waxa meesha ooynaya waxa qaylinaya oo yaabis aradito soo videoga cajiibka ee aanu ka soo diyaarinay telefishinka Al Jazeera oo warbixinta soo gudbiyay waatahay marka xaalku marka halkaas u maraa waxaa hadlay marka ninka xogayaha ka golaha amniga qaranka waxa la yiraahdaa Ali Larijani wuxuu sheegay inay hadda bilow tahay sheekada Mareykan iyo Israa'iilna meesha gali lahaayeen la iska rabo Mareykan iyo Israa'iil meesha gali lahaayeen iska rabo annaga Mareykan ma gaari karno laakiin Mareykanka halkan jooga ma hoyanayaan khaliijka oo dhan nagtaa lagu hayaa Israa'iil nagtaa lagu marka waxay yiraahdeen waxaad disheen Ayatullah macnaheedu Ayatullah dad dishay khalaas miya fakarka Ayatullah dad kale ma qabaan miya Ayatullah waxa soo kale la dilay nin la yiraahdo Ali Shamkhani oo la taliyiisa ahaa iyo taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka markii oo dilku dhacay saddexdooda meeting ama shir ku jiray ayaa la leeyahay laakiin siday doontaa ahaato wuxuu leeyahay hadday noo bilowta annaga waxa aad samayseen laakiin hadday hawshu hadday rag rabtaa ma maqli jirta
haddaan rabnaa yidhahdeen hadda awal marka hore aayatullaahi yaabay ilaalinaynay aayatullaahi waaba baxay waqtigiisaa dhammaaday soo maha hadda marka iska kaana siiy gobolkan saa ku wada noolaan lahayn aa la iska rabaa leey haddaba marka aan idintu soo wararkii ugu dambeeyey cali larijani ninka la yidhaahdo wuxuu sheegay inay garaaci doonaan maraykan iyo israa'iil si awooda weliba ay uga aarsan doonaan ay u garaaci doonaan xogayaha golaha sare ee amniga qaranka iiraan ayaa wuxuu sheegay inay maraykan iyo israa'iil isku si u dili doonaan waxaana uu sheegay dowladaha gobolka inaysan iyagu ahayn kuwo lagu xadgudbayo balse maraykanka halkaa jooga iyo saldhigyada uu halkaa ku leeyahay inay yihiin bartilmaameedka iiraan ay u socoto oo ay ku garaacayso ujeeda maraykan iyo israa'iil meelay joogaanba dilay noogu xukuman yihiin uu yidhi dowladaha dariska ee aan nagta ku hayno khaliijka wuxuu yidhi khaliijkan annaga ayaga uma soconno laakiin ayagaa maraykanha la jooga maraykankaa la joogaan garaacayna annaga meel kasta uu maraykan cag dhigo waa laysku baaba'ayaa uu leeyahy marka sheekadaasu isaguna halkaasuu marsiinayaa xaalku halkaasuu marayaa haddaba aan idintu soo warbixin kale oo telefishinka aljaziira uu qoray xogayaha guud ee xisbullah ayaa wuxuu sheegay inay waajibaadkooda iyaguna qaadan doonaan saacadaha soo socda la arki doono jawaabta xisbullah ay kaga carootay weerarkii lagu dilay aayatullaahiga waxaana uu sheegay inuu aayatullaahiga ahaa hogaamiyahooda muhiimka u ah iyaga wuxuuna sheegay in waajibkooda ay gudan doonaan waxaana uu yidhi ma ka maqnaan doonno fagaaraha wax iska caabinta balse waxaynu u bixin doonaa nafteenna ayaan u hori doonaa ujeeda xisbullaahi ninkii hogaaminayay isaguna goordhow soo hadlay wuxuu leeyahay meeshii ugu dambaysaa laysla maraa u leey tadxiya naftaan u horaynaa u leey aayatullaahi kama maqnaanayno waxa meesha ka dhacay marka waa mar dhow marka annaguna jugtaan ku bilaabaynaa kii iiraana hadda xaafado dhan dumiyey oo oohintu socotaa yahuudi haddii xisbullahi ku darsoonto maxaa yaala marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa warbixinta kale ee soo korortay ee muhiimka ah waxay leedahay waxaa laga qoray waxaa leeyahay iiraan waxay tiri trump wuxuu ka gudbay laynkii casaa ee iiraan waxa uu dilay hogaamiyahoodii aayatullaahigoodii ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo la hadlayay CNN-ka ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka uu laynkii casaa uu ka gudbay balse isaga uu eedi doono ma awoodi doonno uu yidhi ma awoodi karno inaynu gaarno dhulka maraykanka laakiin wuxuu yidhi khiyaarkeenu ma ahan khiyaar kale ma lihin oo ah maraykanka inaynu ku weerarno halka uu joogo gobolka bariga dhexe wasiir ku-xigeenka iiraan wuxuu yidhi annaga dhulka maraykanka gantaal gaari kara ma haysano laakiin halkan bariga dhexe kii jooga ay usan halkan ku ladayn meeshaan waa laisku feesteena u taagaya waa midii ugu xumeedaa ka dhici doonta haddaba warbixintaas iyaduna halkaasay maraysaa waxaa sidoo kale wararka cusub ka mida soo kordhay goordhow ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay hadda sheegeen inay bilaabeen mawjadii 7 iyo 8 ee howlgalka ay ugu magacdareen alwacdu saadiq nambarka 4 ama wacdu saadiqii 4 ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay hadda bilaabeen oo ay ridayaan gantaalihii 7 iyo 8 macnaha dufcadii 7 iyo 8 5 iyo 6 waxay ku habsadeen xaafado dhan oo ay burburiyeen waa soo aragnay kuwana hadda la fasaxayaa oo socdaan oo ayaguna waxay tagayaan mar dhow halkaasa la isku wareysanaa Israa'iil iyo wadamada dariska waa la isku wareysanaya qodobka isaguna halkaas ka gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah ee isaguna soo kordhay barnaamijka aanu ku soo qaadanayno wuxuu yahay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay gantaal ku dhufteen markabka warkoodu diidayaa
markabka waa lala hadlay waxaa la yidhi waa xiran tahay hormus meesha la maro oo maaragtay marinbiyoodka waa xiran yahay waa diiday waa is adkeeyey isagoo isku hadlaynaya ciidamada maraykankuna waa ka carareen xaarisu thawra inta u tageen ciidanka ilaalada kacaanka inta u tageen ayay nagta ka saareen hadda maxay yidhahdeen waa sii quusayaa cid iskaleba lama yaqaano warkuu diiday shidaaluu waday baddaa la cabsiiyey kii meeshaan soo maray yidhaahdeen uusan badbaadayn maraakiibtan maraykanka ku haya soo maraanay dheheen meesha marka waa meesha ugu badan ee shidaalka iyo waxa dhan uu maro albaabkay u fadhiisatay hala soo maray taagay markabkan marka saaki waa la quusiyey baddaa la geliyey haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyey sheekadan warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegeen in la bartilmaameedsaday markab markaasi isagu qaada shidaalka kaasoo marayay Hormuz warbaahinta Iiraan waxay sheegeen in markabkaasi waday shidaalka la bartilmaameedsaday kadib markii uu diiday digniino ay u direen ciidanka ilaalada kacaanka isagoo marayay Hormuz waxaana loo sheegay inuu markaa joogsado laakiin wuu ka dhaga adeegay kadibna waxaa lala helay gantaal wuxuuna hadda bilaabay inuu biyaha ku quuso oo uu hoos u sii socdaa ay leeyihiin موجودة هوسو وسي سعودا وقوصي تحت على تغيا مركا حالكو هالكاسو مريا قدر حيسيسيا كدب وحان قالينا ورركالي او يغونا قوس او سوكورني ايان اذا لسعودسين دورا او اسلا شيكادا كسابسن iyo xaaladu halka ay marayso hadaba qaybtan waxaynu ku faahfaahineynaa warar waaweyn oo soo kordhay dawladda Saudi Arabia ayaa iyadu waxay u yeertay safiirka Iiraan si ay markaa dacwad ugu gudbiso sababaha loo weerarayo Sacuudiga dhanka kale dawladaha Sacuudiga iyo Qatar iyo waxay cambaareeyeen weerar lagu qaaday dekad ku taala Cumaan hatta ma la cafinin maad Cumaan dhinayd awalba dawladaha lixda khaliijka shan waa la cunay hala dhinayd taasna waxa islaha dhexdhexaadinta ama uga naxariistaan Cumaan laakiin dekadooda nagta laga saar markaas Qatar iyo kulli way cambaareen waxay hatta dawladii dhexdhexaadinta ku jirtay Iiraan way weeraraysaa sidee wax u jiraan marka waa burur hebel ma maqli jirtay marka Iiraan waa bururtay ayatullaahi markii la dilay xaalku marka halkaas uu maraya dhanka kale imaaraadku waxay sheegeen 3 qof inay marayso dhimashada weeraradii lagu soo qaaday dalkooda halka dhaawacyaduna ay fara badan yihiin sida ay yiraahdeen waxa soo kale iyaguna sheegay khasaaraha dhankooda Bahrain iyo Sacuudiga oo iyaguna ka hadlay Kuwait iyaduna waxay sheegtay hal qof inuu maartay ku dhintay tira kalena ay ku dhaawacmeen weeraradii lagu soo qaaday saacadihii la soo dhaafay haddaba xaaladda gobolka bariga dhexe weli way kacsan tahay diyaaradihii oo dhan meel ay maraan male wixii oo dhan waa xaalku cirkaas uu maraya marka meeshaasay wax marayaan madaxdii Israa'iilna godad dhulka hoostiisa ku carareen waa la raadinayaa saasaan gantaaluhu u wiifayaan marba meel qayb loo dirayaa hadda dufcadii 7 iyo 8 hadda la diray inta barnaamijka ku jirnay hadhow 9 iyo 10 iyo marba number ay u leeyihiin marka waxa leeyahay wallahi idinkuna seexanayna leey marka waa arki doonaa meesha sheekadu ku dhamaato iyo xaalku sidoo noqdo wararkaas ay ahay kuwii ugu waaweyn ay soo kordhay tan intaynu markale kulmayno like gareeyo share gareeyo barnaamijka haddaad nagu cusub tahay subscribe ka iloobi YouTube ka Facebook ka follow gareey nabadgelyo